aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya halkaas oo ay ka jeediyeen khudbado ku saabsan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay ku hogaaminayaan dalka 4 sano ee soo aadan haddii loo doorto madaxweynaha waddanka. Farmaajo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa ka mid ahaa 19 murashax oo la qorsheeyay in maanta iyo Khamiis ay hadaljeedintooda ka sameeyaan teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyo guddoonkooda. waa maalintii labaad ee hadaljeedinta waxaana ay ka duwan tahay maalinkii koobaad marka loo eego saameynta murashaxiinta hadlaya walow maalintii labaad ay xildhibaano kooban tageen hoolka teendhada Afisyoone ee lagu dhageysanayo khudbadaha. murashaxiinta ayaa la siiyay 15 daqiiqo waxaana ay kaga hadleen barnaamijkooda siyaasadeed wixii ay horay u soo qabteen iyo sidoo kale waxyaabaha ay maagan yihiin inay dalka ka hirgeliyaan haddii loo doorto madaxtooyada 4 sano ee soo aadan. sidoo kale ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana sugayay ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyo kuwa booliiska dowladda Soomaaliya oo la geeyay afaafka hore ee xeradaas. murashaxiinta horay u soo xukumay waddanka ee kala Xasan Sheekh, Sheekh Shariif iyo Farmaajo ayaa khudbadaha ay halkaasi ka jeediyeen waxay ahaayeen kuwa xasaasiya oo ay kaga hadleen waxyaabaha ay horay dalka uga soo qabteen iyo kuwa ay doonayaan inay hirgeliyaan iyagoo sidoo kalena hadalka isku leexinayay isla markaana uu muujinayay mid waliba in isaga hortiis ama gadaalkiis aan waxba laga qabanin howlaha muhiimka ah ee waddanka. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo jeediyay khudbad 15 daqiiqo qaadatay ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladda siyaasadeed ee hadda waddanku ku jiro waxyaabihii horay loo soo maray iyo sidoo kale sida ay tahay in looga shaqeeyo mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay laga soo bilaabo 2012 oo xukunka qabtay iyo markii uu ka degay oo ahayd 2017 intii u dhaxaysay inuu waddanka ka qabtay arrimo muhiim ah isla markaana la kala dhantaalay wixii isaga ka dambeeyay oo uu xukunka joogay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale Xasan Sheekh ayaa sameeyay ballanqaadyo waaweyn oo ku aadan waxqabadkiisa 4 sano ee soo aadan haddii uu ku guuleysto madaxtooyada, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in uusan muwaadin Soomaaliyeed u dhiibi doonin dal shisheeye isla markaana uu ilaalin doono sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed. hadalkaasi oo u muuqday mid uu ku leexinayo madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeynayo in uu dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhaga oo ahaa sargaal ka tirsanaa jabhadda ONLF ee Soomaalida dalka Itoobiya, taasi oo ilaa hadda boog siyaasadeed ku ah madaxweyne Farmaajo. waxa uu sidoo kale sheegay in amniga waddanku si weyn u daciifay wixii isaga ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana hadda ay doonayaan in ay si amba qaadaan sidii wax looga qaban lahaa amniga waddanka loogana xoreyn lahaa ururka Al-Shabaab oo kaga sugan meelo badan awoodooduna ay sare u sii kacaysay sanadihii u dambeeyay sida uu sheegay. madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha u taagan sanadkani ayaa isaguna hortagay xildhibaanada labada aqal isagoo oo jeediyay khudbadiisa ku aadan barnaamijka siyaasadeed ee uu la imaanayo haddii mar kale dib loo doorto. Farmaajo ayaa si aad ah uga hadlay waxqabadka dowladdiisa ee 5 sano ee la soo dhaafay waxaana uu diiradda saaray ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo la dagaalanka Al-Shabaab. murashax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ka codsaday xildhibaanada labada aqal inay codkooda siiyaan si uu u sii hogaamiyo filla Soomaaliya, wuxuuna ku faanay inuu la dagaalamay musuqmaasuqa isla markaana uu xoojiyay dowlad wanaagga Soomaaliya iyo dhaqaalaha, wuxuuna sheegay in xasilooni siyaasadeed iyo kobac dhaqaale uu abuuray muddadii 5 sano ahayd ee uu xukunka joogay. waxa uu sidoo kale intaasi ku daray inuu xakameeyay hubka ay haysato dowladda Soomaaliya si uusan u dhexgelin bulshada Soomaaliyeed dhexdoodana aysan iskugu adeegsan.
dagaalka al-shabaab ayuu sidoo kale sheegay inuu xoogga saaray, wuxuuna tilmaamay inay gacanta dowladda soo galeen deegaano hor leh sida Sabiib iyo Caanole, Jannaale iyo Marka. inkastoo degmada Marka ay gacanta dowladda soo gashay ka hor maamulka madaxweyne Farmaajo. dhinaca kale waxa uu sharaxaada ka bixiyay ereyga halku-dhiga u ah ee isbedel doon ka socda, wuxuuna xusay in isbedelkaasi uu ka bilowday meesha hadda la joogo ee doorashada. isbedelka wuxuu ka yimid wax la yiraahdo isbedel doonka fadhiidka ah oo taariikhdeena ku suntan. sidaad ogtihiin isbedel doon ka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadani hadda la joogo oo doorashada ah, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddii mar kale dib loo doorto waxa uu ballan qaaday in uu dalka gaarsiinayo doorasho qof iyo cod ah, waxaana uu shaaciyay haddii qof kale la doorto inay taasi ku adkaan doonto oo isaga kaliya awood u leeyahay, maadaama hadda waxyaabo badan ay u qabsoomeen doorashadan ay u suurto geli weyday inay ka dhigaan mid qof iyo cod ah. annaga ugu dhow doorasho qof iyo cod ah oo qof cusub haddii uu hadda yimaado ma gaari kara taasi, ayuu ku yiri hadalkiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu ku faanay in ay ilaaliyeen faragelinta shisheeyaha, isla markaana ay diideen in Soomaalida wax loo meeriyo, hase yeeshee dhexdooda ay iyagu go'aan ka gaaraan, isla markaana beesha caalamku ay korjoogto una haato. waxa uu sheegay in hanaanka dowlad wanaagga ee Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay uu ahaa mid maqaam sare leh, iyagoo doonaya inay wadadaasi ku sii socdaan, Soomaaliyana ka dhigaan waxa uu ugu yeeray dal normal. waayo buu yiri hadda Soomaaliya ma ahan mid normal. hadal jeedinta murashaxiinta u taagan madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya 2022 maanta ayaa la soo gabagabeeyay, waxaana la sugayaa 15 bishani iyo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. dhanka kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ee soo xaadiray hoolka teendhada Afisyoone ayaa sameeyay arrin ay shalay sameeyeen oo uu kaga digay gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Senator Cabdiqani Geele, taasi oo ahayd in 3 meelood meel ka mid ah ay timid hoolkaasi xildhibaanadii loo baahnaa. tirada shalay timid marka la eego waxaaba ka sii yarayd tirada maanta ay tagtay, iyadoo halkaasi ay khudbada ka jeedinayeen murashaxiinta ugu saameynta badan kuwa sanadkani u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga doorashada ayaana waxa uu sheegay in xildhibaanadu ay ku xadgudbeen dhaartii ay dalka u mareen, maadaama ay maalin shaqo imaan waayeen teendhada Afisyoone. murashaxiintuna ay xaq u leeyihiin in la dhagaysto khudbadahooda si loo qiimeeyo barnaamijka siyaasadeed ee ay doonayaan in ay waddanka ku hogaamiyaan. waa hagaag saaxiibayaal, shabakada wararka ee Garaad TV ayaa toos inooga dheehanaysaan. waxaa soo baxaya waqtigani shaki laga qabo in madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aqbali waayo natiijada doorashada ee dhacaysa 15 bishan aynu ku guda jirno, kadib markii warbaahinta madaxa bannaan loo diiday tabinta doorashadaasi loona xiray kambani uu leeyahay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ka mid ah shakhsiyaadka lafdhabarka u ah ololaha dib u doorashada ee madaxweyne Farmaajo. warbaahinta madaxa bannaan oo tagay teendhada Afisyoone ayaa loo diiday in ay toos u tabiyaan, isla markaana ay galaan halka ay ka socoto khudbadda murashaxiinta madaxweynaha u taagan, iyadoo sidoo kalena la filayo in laga hor istaagi doono maalinta ay dhacayso doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ku beegan 15 bishani maalinimada Axadda. warbaahinta wax ka tabinaysa hoolka teendhada Afisyoone ayaa loo afduubay kambani uu leeyahay taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo hadda laga daawanayo khudbadda murashaxiinta madaxweyne ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2022. shirkadda Fahad Yaasiin ee la yiraahdo Hon Connect ayaa loo xiray tabinta tooska ah ee live-ka khudbadda murashaxiinta iyo doorashada madaxweynaha. arrinkani ayaa abuuray shaki laga qabo daahfurnaanta doorashada iyo inuu Farmaajo qorsheynayo inuu diido natiijada ka soo baxaysa doorashada,
maalinta ay bishu tahay 15 May. guuxani ayaa hadda ka dhex bilowday murashaxiinta ugu saameynta badan ee u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. warbaahinta madaxa bannaan ayaa sidoo kale walwal ka muujinaya daafurnaanta doorashada haddii shirkadani oo kaliya loo sii ogolaado tabinta tooska ah. waxaa sidoo kale la soo tabinayaa suurtagalnimo la xidhiidha in sunta budada ah ama dareeraha la isku raaciyo mikrofoonka ay dhici karto in la isku dhexgeliyo mikrofoonada hadallada lagu jeedinayo, taasi oo keeni karta khatar caafimaad iyo in murashaxiinta sida weyn looga baqayo ama farmaajo uu isleeyahay waxay ku guuleysan karaan xilka madaxweynaha in ay meesha iskaga baxaan. warbaahinta madaxa bannaan ayaa walaac xoogan ka muujisay qaabka looga hor istaagay in ay tabiyaan live-ka qodobadaha iyo doorashada madaxweynaha ee dhacaysa 15 bishani. waxaana hadda murashaxiinta xilka madaxweynaha kula tartamaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhexdooda ka taagan guuxaasi la xiriira sababta kambaniga Fahad Yaasiin oo kaliya loogu afduubay inuu tabiyo doorashada madaxweynaha iyo qodobadaha laga jeedinayo howlka afisyoone. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale xukunka doonaya ayaa loolan adag waxa uu ka wajahayaa murashaxiin saameyn xoogan kula siyaasadda Soomaaliya oo qaarkood horey u soo noqday madaxweynayaal dalka ka soo arrimiyay, iyadoo dhowr jeerna arrimaha siyaasadda looga soo guuleysay madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibkiis Fahad Yaasiin oo isagana loo diiday ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee waddanka. waa tahay saaxiibayaal, qaybaha kale ee wararka ayaynu ku sii siqaynaa. magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda Mareykanka, kuwaasi oo ka degay garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay. wafdigani ayaa ka soo kicitimay dhanka dalka Djibouti, waxayna iskugu jiraan diblomaasiyiin iyo saraakiil ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka, kuwaasi oo diyaarad qaas ah ku tagay magaalada Hargeysa. wararkan helay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in xubnahani uu horkacayo taliyaha ciidanka Mareykanka ee fadhigoodu uu yahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee Mareykanka, iyadoo loo gudbiyay dhanka madaxtooyada, halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in xubnaha wafdigani ay booqan doonaan dekedda magaalada Berbera oo ay gacanta ku hayso shirkadda laga leeyahay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ee la yiraahdo DP World. ilaa iyo hadda ma jiro wax faahfaahina way xukuumadda Hargeysa ka bixisay socdaalka wafdigani Mareykanka ee gaaray magaaladaasi. booqashadani ayaa daba socotay socdaalkii uu dhowaan Muuse Biixi ku tagay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka, isagoo kulamo la soo qaatay madax ka tirsan dowladda Mareykanka iyo jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddankaasi Mareykanka. hase yeeshee xogo madax bannaan oo warbaahintu ay ka heshay socdaalka ay wafdigani ku tageen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa waxay sheegayaan in uu daba socday heshiisyo ay madaxweyne Muuse Biixi iyo dowladda Mareykanku ku galeen magaalada Washington, kuwaasi oo la xiriira sidii Mareykanku u isticmaali lahaa dekedda magaalada Berbera oo loo arko goob istiraatiiji ah, isla markaana tartan xoogan ay ugu jiraan quwadaha reer galbeedka. isfahan dhex maray madaxweyne Muuse Biixi iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka, qaasatan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, ayaa waxa uu ku saabsanaa in dowladda Mareykanka loo ogolaado inay isku ballaariso dekedda istiraatiijiga ah ee magaalada Berbera, halkaasina ay isticmaali karaan militariga Mareykanka ee ku sugan Geeska Afrika. waxaana la sheegay in wafdigani ay u yimaadeen magaalada Hargeysa si loo dhammaystiro heshiisyadaasi, isla markaana diyaaradaha Mareykanku ay u soo cagadhigtaan magaalada Berbera si ay halkaasi uga ilaaliyaan danaha istiraatiijiyadeed ee Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa markii uu tagay madaxweyne Biixi waddankeeda waxay si cad u sheegtay inaanay marnaba Mareykanku dal gooniya u aqoonsan doonin Somaliland, isla markaana qadiyadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay hal meel ka taagan tahay. hase yeeshee waxay soo dhaweysay cilaaqaad dhow oo ay la yeelato xukuumadda Biixi ee Hargeysa.
maraykanka ayaa wada isku daya uu kaga hortagayo isballaarinta shiinaha ee bariga afrika kaasi oo ay hadda milatarigooda ku wada sugan yihiin dalka jamhuuriyadda jabuuti islamarkaana mid waliba uu doonayo in uu galaangal intaasi ka badan ku yeesho wadamada kale ee dhaca bariga afrika. shiinaha ayaa sidoo kale geeskiisa waxa uu xoojinayay muddooyinkii lasoo dhaafay xiriirka uu la leeyahay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo taa bilcagsigeedana Somaliland ay u kicitintay dhinaca Mareykanka iyada oo markaasi ka shidaal qaadanaysa xurgufta iyo loolanka u dhaxeeya shiinaha iyo Mareykanka. markii uu tagay madaxweyne Biixi magaalada Washington dowladda shiinaha ayaa Soomaaliya ku wareejisay hub iyo gaadiid dagaal oo ay markab ku keentay dekedda Muqdisho. arrinkaasi oo Somaliland ay si weyn u dhaleeshay sheegtayna in lagu soo beegay xilliga uu socdaalayay madaxweyne Biixi. lama oga inta cishe ay sii joogi doonaan hadda wafdiga ka degay magaalada Hargeysa ee heerka sare waxaana kulamo dheeraad ay la qaadan doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta kale ee Somaliland. waa tahay saaxiibayaal, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligani kaalimaha hore ka soo galay murashaxiinta ugu cadcad ee sanadkan u tartamaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo dhoolatus ku soo bandhigay magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay munaasabad uu qorshe siyaasadeedkiisa ku soo bandhigayay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale u taagan in xilkaasi dib loogu doorto. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay sababta ay tahay in mar kale dib loogu soo doorto hanaanka dalka isagoo ujeedkiisa ugu weyn uu yahay Soomaali heshiis dunidana heshiis la. inkastoo aan ilaa hadda farta lagu fiiqi karin qofka noqonaya madaxweynaha tobnaad ee wadanka, haddana marka la eego xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadii ka qayb galay munaasabadaasi oo lagu daray qorshe siyaasadeedka uu soo bandhigayay Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu muuqday murashaxa ugu rajada wanaagsan oo dhinacyo badan ay ku wada qanci karaan. murashax kasta waxa uu leeyahay meelo uu ku liito iyo meelo uu ku xoog badan yahay, waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu ku xoog weyn yahay. waxaana Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha uu ku fiican yahay lagu sheegay in uu fahansan yahay nidaamka dawladnimo isla markaana yahay hogaamiyaha hadda isku keeni kara ummadda Soomaaliyeed kadib 5 sano oo dalku nidaam taaga galay. dhoolatuska Xasan Sheekh waxaa ka mid ahaa in xildhibaanadii ugu badnaa ay soo xaadireen munaasabada uu ku qabtay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay ka muuqatay inay u riyaaqeen soo bandhigida qorshaha siyaasadeed ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo inuu mar kale dib dalka u hogaamiyo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo isla markaana hadafkiisu yahay sidii uu isku keeni lahaa ummadda Soomaaliyeed una dhexdhigi lahaa dib u heshiisiin ballaaran. dhinaca kale waxaa hadda soo badanaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo noola socotaan. waa Suldaanka TV oo idiin gudbinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya. qodobada aan qaybtan ku soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dowladda Kenya oo ku fishilantay qorshe ay markaasi Sheekh Shariif iyo Saciid Dani ku dhexdhexaadinaysay iyadoo doonaysay in Xasan Sheekh daaqada laga tuuro maadaama uu yahay ninkii maxkamadda heegeeya kiiska badda Soomaaliya. kulamo ka dhacay magaalada Nairobi oo fishil ku soo dhamaaday iyadoo markaasi dowladda Kenya doonaysay in Shariif iyo Dani ay kala qaataan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka. haddaba muxuu Shariifku ka yiri maxaase ka jira in dowladda Kenya ay aaminsan tahay in Shariifku uu yahay nin qabow oo fuli kara go'aanadeeda siyaasadeed ee ku wajahan arrimaha Soomaaliya. Dani oo markaasi la doonayay in arrimahaas lagu fuliyo, Shariifkuna uu markaasi dibadjoog ka noqdo iyo qorshihii oo fishil ku soo dhamaaday waan idin soo gudbin doonaa. wararkan kale waxaa ka mid noqon doona Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo xilligan aaminsan in madaxweyne Farmaajo kursiga uu ku fadhiisi karo isagoo marwada koobaad ee qaranka ee markaasi xoog ku saaraya in madaxweyne Farmaajo uu u tanaasulo. waxaan eegi doonaa Marwo Zainab Cabdi Macalin oo kaali weyn markaasi ka ciyaaraysa in Khayre uu heli karo codadka madaxweyne Farmaajo. haddaba kaalin teeleg ayay ku leedahay marwada qaranku arrimaha markaasi ku saabsan xildhibaanada uu heli karo Farmaajo iyo sidoo kale Khayre oo loo wareeji karo. warkan ayaan ku soo gudbin doonaa. wararkeena kale waxaa ka mid noqon doona
axmed madoobe oo xasan sheekh maxamuud u saxiixay inuu markaasi xildhibaanada kismaayo isaga codka markaasi ay sii doonaan haddii dani wareega koobaad uu ku helo doorashada. hogaamiyaha jubbaland oo aaminsan ninka kismaayo ku hayi kara inuu yahay xasan sheekh maxamuud, weliba wuxuu aaminsan yahay in xasan uu ka awood badan yahay. sababtu maxay tahay? warkan ayaan kusoo gudbi doonaa. dowladda maraykankana waxay kaalin ka ciyaaraysaa iminka in wadahadalka soomaaliya iyo maamulka somalilan markaasi lagu daro qodobo muhiima. haddaba maraykanku kaalin intee ayuu ka ciyaari karaa? kulamo ka dhacay magaalada hargeysa, wakiilo ka socda markaasi dowladda maraykanka oo gaaray iyo wafdi culus oo muuse biixi kulan kula qaatay gudaha magaalada hargeysa ayaan eegi doonaa. taas ayaana ka dhigan in taliska ciidanka maraykanka ee africom uu markaasi kaalin ku yeelan doono arrimaha geeska afrika iyo wadahadaladaasi. qaybtan ayaan kusoo gudbi doonaa saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan. waa suldaanka t v sheergareeya muuqaaladan oo saaxiibada gaadhsiiya si ay kula daawadaan. laygta iyo kommentiga ha naga iloobin oo qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada saliimka ah iyo fikirkaada suuban. iminkana u diyaargarooba qodobadii aan dul maray oo faahfaahsan. waxaynu ku bilaabaynaa warkeenna. dowladda kenya ayaa ku fishilantay qorshe waaliya oo ay markaasi ka lahayd doorashada soomaaliya siday ku waramayaan dadka xogogaalka ah. kenya ayaa ku fishilantay qorshe ay heshiis markaasi ku dhex dhigi rabtay sheekh shariif iyo ninka la yidhaahdo siciid dani, kaasooy ku dhexdhexaadinaysay inay doorashada hal meel kasoo wada galaan, iyadoo doonaysay in xasan sheekh daaqada laga tuuro maadaama ay u hayaan cuqdad markaasi hore dowladiisii ay kenya markaasi iyo dowladii soomaaliya u dhex martay xilligii xasan sheekh ee ku saabsan kiiska badda oo xasan sheekh uu geeyey maxkamadda heeg kadibna ay ku guuleysatay dowladda soomaaliya. magaalada nairobi kulamo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay ayaa fishil kusoo dhammaaday, iyadoo kenya doonaysay in shariif iyo dani laga kala dhigo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. dani laga dhigay ra-iisul wasaaraha, shariifkuna uu noqdo madaxweynaha soomaaliya. arintaas ayaana ka dhigan mid kenya ay aaminsan tahay in shariif go-aanada kenya uu fuli karo, danina uu markaasi kenya u adeegi karo, sidaasina ay go-aano waaweyn ku gaari karto oo ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya. arrintaas fishil ayay kusoo dhammaatay, waxaana lasoo warinayaa in shariifku uu diiday kadib markii uu ogaaday shirqoolle waaweyn oo loo maleegayo. shariifka ayaa kulan deg dega markii uu shahaadada qaatay ku gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya. hal maalin iyo hal habeen ayuu soo joogay nairobi. kulmadaas ayaana ahaa mid dowladda kenya markaasi arrimahaas ay ugu yeertay, wallow arrimahaas natiijalan ay kusoo dhammaadeen oo aan wax guula laga gaarin. wararku siday sheegayaan, shariifku walaac weyn ayuu ka qabaa dowladda kenya, wuxuuna u arkaa mid xilligan la doonayo in dana gaara ay ku fushato, wallow isagoo diidan yahay. dhinaca kale xasan cali khayre ayaa xilligan aaminsan inuu heli karo codadka madaxweyne farmaajo uu la imaan karo wareega koobaad ee doorashada, isagoo hoos galay marwada qaranka marwe seynab cabdi macalin sida markaasi xogtu sheegayso. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa xilligan aaminsan in marwadu ay ka dhigi karto madaxweyne maadaama codadka markaasi madaxweyne farmaajo uu heli karo ay aada u badan yihiin, sidaasina uu khayre markaasi kula wareegi karo haddii marwadu ay arrintaas kala shaqayso. kulan marwada iyo sidoo kale khayre dhexmara ayaa lasoo warinayaa inuu kala hadlay in madaxweyne farmaajo uu tanaasulo wareega labaad haddii khayre wareega labaad usoo gudbo, sidaasina codadka uu markaasi farmaajo ay usoo wareegaan dhinaca xasan cali khayre. marwada qaranka ayaa arintaas lasoo warinayaa inay khayre markaas u sheegtay inay kala shaqay doonto, wallow aan la ogeyn kaalintay ka ciyaari karto doorashada soomaaliya iyo xildhibaanada uu heli karo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inay wareeji karto iyo in kale. taas ayaana ka dhigan mid khayre xilligan uu ku daba feelsan yahay marwada qaranka, isagoo u arkaa inay kaalin markaasi gaarsii karto maadaama ay yihiin isku jufo, sidaasina ay halbel kasoo wada jeedaan beesha murugsade. taas ayaana ka dhigan mid qaab beeleed uu ku doonayo khayre in codadka farmaajo loogu soo wareejiyo. dhinaca kale hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa xasan sheekh u saxiixay inuu xildhibaanadii kismaayo kasoo baxay codadkooda uu ku wareeji doono, danina markaasi wareega koowaad uu ku hori doono sida xogtu sheegayso. hogaamiyaha jubbaland ayaa aaminsan ninka kaliya kismaayo ku hayi kara inuu yahay xasan sheekh maxamuud, ninka kaliya
ee amarkiisa qaadan karana inuu yahay xasan sheekh maxamuud, sidaasina wuxuu aaminsan yahay in dibad iyo gudaba uu wuxuu raba ka samayn karo haddii xasan sheekh uu ka yahay dalka madaxweyne. taas ayaana ka dhigan mid dowladdii xasan sheekh hogaamiyaashu ay lahaayeen awood dheeriya, sida iyo kale ayuu doonayaa hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe. taas ayaana ka dhigan mid xilligan uu kaali weyn ka ciyaarayo arrimahaas inuu kala shaqeeyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud. dhinaca kale waxaynu eegaynaa kulamada ka dhacay magaalada hargeysa. hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ee generaal stephen nin la yihahdo ah taliyaha ciidanka ee maraykanka ee africom oo markaasi gaaray magaalada hargeysa ee caasimada maamulkaas somalilan. generaal stephen ayaa saraakiil markaasi isagu horkacayay ee ciidamada maraykanka ka tirsan waxay tageen magaalada hargeysa, kuwaasoo lasoo warinayo inay ku wehelinayeen booqashada safiirka maraykanka anderlari ee arrimaha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda maraykanka. muuse biixi ayaa uga mahad celiyay wafdigan safarka ay ku yimaadeen somalilan, isagoona u sheegay inay soo dhoweynayaan iskaashiga dhinacyada amniga militariga labada markaasi dal ee maraykanka iyo soomaaliya siduu hadal ku dhigay. balse safiirka maraykanka ayaa arrintaas u sheegay in dowladda maraykanku ay hadda kadib kaalin ku yeelan doonto arrimaha wadahadalada ee dowladda dhala doonta iyo madaxweynaha la dooran doono ee soomaaliya iyo somalilan. intii uu socdo kulankan labada dhinac uu dhex maray ee garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa, waxaa hogaamiyey biixi ku sifeeyey booqashada generaal stephen inay tahay horumar muhiima oo laga sameeyey xiriirka labada dhinac. booqashada generaalkan waxay markaasi tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca adkeynta geeska afrika iyo iskaashiga ka dhexeeya, ayuu yidhi hogaamiyaha somalilan muuse biixi cabdi. ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya waxa ay qeyb lixaad leh markaasi ka qaataan ilaalinta marin biyoodka muhiimka ah ee badda cas, taasoo markaasi faa-iido weyn ay ku qabaan dhammaan dalalka dhan, ayuu yidhi biixi. waxay dhankooda si wada jira ay u soo dhoweeyeen dadaalka hogaamiyaha ee markaasi waa generaal stephen iyo safiirka maraykanka anderlari, iyagoo markaasi sheegay in dhinacyadu ay diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga ee militariga iyo arrimaha kale. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan waa suldaanka t v. muuqaalkan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. nabadgelyo. bismillaahi raxmaani raxiim. wacanoo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. qaybtan waxaan ku falanqaynaynaa macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan ruushka iyo maraykanka oo ku tartamaya adeegsiga xayawaano loo tababaraya sida ciidankii oo kale. macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan qaar ka mid ah xayawaanada la tababaray, sida ay labadaani dowladood ay ugu dagaalamayaan tababaridda xayawaanada. waxaa kaloo aan eegi doonaa qaabka ugu sahlan ee xayawaanada loo tababarayo iyo habka loo adeegsan karo. waxaa kaloo aan qaybtan ku eegaynaa insha allah macluumaad ku saabsan wararkii ugu dambeeya dagaalada Ukraine, gaar ahaan maraykanka oo ka digaya inaan la dhayalsan khatar hor leh oo soo food saari karaysa ciidamada dowladda Ukraine kana imaan karaysa dhanka Ruushka. hadallada warbaahinta reer galbeedka ay jeedinayaan ayaan qaybtan ku falanqaynaynaa. waxaa kaloo aan eegi doonaa dhanka Ruushka iyo macluumaadyada ay soo saareen. ku soo dhowo mar kale barnaamijka. fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada, aad baad u mahadsan tahay. xeebaha badda madow oo ku yaala mid ka mid ah saldhigyada militari ee ugu muhiimsan dowladda Ruushka waxaa daqiiqad walba gaaf wareega oo ilaalo ka haya raxan ka mid ah kalluunka, gaar ahaanna midka loo yaqaano dolphinka. kalluunkan oo ka mid ah naasoleyda ku nool badda ayaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada ay tababareen ciidamada dowladda Ruushka, waxaana uu qabtaa howlo kala duwan sida qaybta sirdoonka iyo inuu ilaaliyo xeebaha Ruushka kana ilaaliyo in lagu aasa miinooyin. sidoo kale mararka qaarkii wuxuu awoodda u leeyahay in uu miinada uu ku soo xiro maraakiibta iyo gujisyada cadowga, taasoo ah mid ay si gaar ahaaneed ugu tababareen saraakiisha ciidanka ee dowladda Ruushka. tan la yaab kale waxay tahay in kalluunka ama malayga dolphin loo yaqaano ee uu tababaray Ruushka ay kala yihiin kuwa haysta darajooyin ciidan oo kala duwan sida ciidamada oo kale. muhiimadda ugu weyna waxay tahay inay ilaaliyaan dekedaha Ruushka iyo saldhigyada ciidamada militariga ee Ruushka ee dhanka badda ku yaala. taasi waxaa la dhihi karayaa Ruushka waxa uu leeyahay guuto dhan oo ciidamadan, gaar ahaana kuwa dolphinka, kuwaas oo howlo kala duwan qabanaya kana qabanaya saldhigyada ciidamada Ruushka ee dhinaca badda madow. qisada ah in ciidamada iyo xayawaanada la tababaro waa mid waqti dheer soo jirtay oo hadda aanan bilaaban, soona bilaabatay 10 sano ka hor,
waxaana ugu dambeeyey oo arrintaa gebi ahaanba kashifay sawirro ay dhowaan qaadeen dayax-gacmeedyada sawirradaas oo laga qaaday xeebaha dalka ruushka laguna ogaaday macluumaadka arrintan la xidhiirta in xayawaanada la tababaro lana adeegsada ma ahan mid nagu cusub laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay layaab ay ku noqoto habka loo tababarayo xayawaanada qaar waxaa ugu horreeyey oo isticmaalay farsamada midoogii Soofiyeed si ay ugu takhalusaan miinooyinka lagu aaso biyaha hoostooda ee loogu talagalay in lagu qarxiyo maraakiibta iyo gujisyada dagaalka maalmo ka hor warbaahinta reer galbeedka ayaa daabacay macluumaad ku saabsan in koox ka mid ah kalluunka ama malayga dolphin loo yaqaano oo tababaran ay ilaaliyeen saldhigga ciidamada badda ee ugu weyn ee ruushka uu ku leeyahay ugu magacaaba Sevastopol dekedan waxay ku taallaa dhanka badda madow waana mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee ciidamada ruushka ay ilaaliyaan kalluunkan wuxuu ka mid yahay naasoolayda ku nool biyaha badda kuwooda ugu caqliga iyo kartida badan waana taas midda keentay in ruushka uu ku aaminay inuu ilaaliyo mid ka mid ah saldhigyadooda ciidan gaar ahaan kan ugu muhiimsan dolphiniska wuxuu ilaahay uu ku manaystay dareen aan caadi ahayn oo dabiici ah wuxuu awoodda u leeyahay inuu kashifo miinooyinka iyo waxyaabaha khatarta ee la dhiga biyaha hoostooda maahan markii ugu horreyso ruushka uu tijaabiyey arrintan sanadkii 2008 xukuumadda Moscow waxay kalluunkan u adeegsatay inuu ilaaliyo saldhig militari oo ay ku leeyihiin magaalo xeebeedka lagu magacaabo Tartus oo dalka Suuriya ah sidoo kalena farsamada ruushka adeegsiga xayawaanada kuma koobna oo kaliya dolphiniska waxaa jira kuwa kale bishii abriil sanadkii 2019 koox kalluumaysata ah ayaa xeebaha dalka Norway waxay ka heleen nibiri cad oo sida la sheegay aad u yaraa kaas oo ay ku xirnaayeen kaamirooyin waxbasaasa waxaana markii baaris lagu sameeyay la ogaaday inuu yahay nibiri ay tababareen ciidamada badda ee dowladda ruushka suuragalna ay ahayd in uu ka soo baxsaday gacantooda naasoolayda ku nool dhanka badda waxay muddo dheer ay ahaayeen kuwo si weyn uga faa'iidaystaan ciidamada ruushka gaar ahaanna duulaankii ruushka uu ku qabsaday jasiiradda Crimea ee dalka Ukraine sanadkii 2014 xilligaas oo ciidamada ruushka ay la wareegeen xarun weyn oo lagu tababarayo kalluunka gaar ahaanna kan dolphiniska loo yaqaano farsamadan ayaa ruushka wuxuu ka dhaxlay Sofiyeedkii burburay waxaana taariikhdu ay sheegtaa in Sofiyeedku uu ku guuleystay in 10,000 oo miino ah oo lagu aasay dhanka badda madow ay ka soo saaraan iyaga oo adeegsanaya dolphins tababaran dhinaca kale Mareykanka kama marna adeegsiga farsamadan xilliga dagaalkii qabooba xukuumadda Washington waxay dejisay mashruuc weyn oo lagu tababarayo kalluunka dolphins loo yaqaan iyo libaax badeedka waxaana saldhig u ahaa xarun ku taala magaalada San Diego ee gobolka California ee dalka Mareykanka qaar badan oo ka mid ah dolphiniskan ayaa waxa uu tababaray dalka Mareykanka waxaana uu adeegsaday duulaankii uu ku qaaday dalka Ciraaq iyadoo 10 ka mid ah sida la sheegay ku daadiya biyaha qariijka Carabta si halkaas ay ugu nadiifiyaan miinooyinkii ku aasnaa tijaabada adeegsiga xayawaanada loo adeegsanaya arrimaha ciidamada ama sirdoonka kuma koobna naasoolayda oo kaliya gaar ahaan kuwa ku nool biyaha inta uu taagnaa dagaalkii qabooba ee u dhexeeyay Sofiyeedkii hore iyo Mareykanka Washington waxay bilowday barnaamij qaas oo lagu tababarayo bisadaha kaas oo sida la sheegay socday sanado badan waxaana ku baxday mashruucaasi adduun lacageed gaaraya 14 milyan oo dollar ujeedadu waxay ahayd in ay xoga ka keenaan ruushka waxaana gudaha bisadaha sida la sheegay lagu xiray adeega GPS loo yaqaano balse mashruuca wuxuu ku soo dhamaaday fashil kadib markii maalintii ugu horeysay ee la howlgeliyay loona diray inay xog ay ka keenaan safaaradda ruushka oo ku lahaa magaalada Washington iyadoo wadada u sii socota sida la sheegay gaari uu dardaray laakiin Washington muddo dheer kadib waxay ku guuleysatay in bisadahaasi ama mukulaalaha sidaad u taqaanaanba ay u adeegsato dagaalkii ka dhanka ah kooxda Daesh waxaana howlihii ugu muhiimsanaa ee u qabteen kamid ahaa in ay kashifeen meelaha lagu aasay miinooyinka sidoo kale xayawaanada loo adeegsada sirdoonka waxa ugu caansan ugu muhiimsan qooleyda ama shimbirta waxaana adeegsaday dawlado aad u tiro badan waxay awood u leeyihiin sida la sheegay inay macluumaadyo kala duwan ay keenaan shimbirahan ayaa inta badan waxa loo tababaraa howlaha basaasida waxaana ugu muhiimsan in uu samadaas uu iska duulo iyada oo cidna aanay dareemin hawshiisana uu iska wato waliba si caadi ah markii ugu horeysay shimbir la isticmaalo gaar ahaan in wax soo basaaso ama xog uu keenana waxay ahayd xilligii Nabi Suleymaan waxaana loo diray inuu xog uu ka keeno boqoradii Balqiisa sidoo kalena dawladii ugu horeeyay ee shimbirta aan qooleyda ahayn oo aan naqaano u dirsada howlgal sirdoon waxay ahaayeen Sofiyeedkii hore iyo Jarmalka dunida aan maanta ku noolnahay waxaa jira 4 dawladood oo ku mashquulsan barnaamijyo lagu tababarayo xayawaano kala duwan iyadoo loo adeegsanayo dhanka howlaha ciidamada iyo sirdoonka waxaana ay kala yihiin Mareykanka Ruushka Waqooyiga Kooriya iyo maamulka Yahuudda Israa'iil laakiin adeegsiga xayawaanada naasoolayda ee ku nool dhanka badda waxa ugu horeeya oo aan lagu gaaraynin wadalka Ruushka haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay yaa ku guuleysan doona ama ku hormari doona dagaalka adeegsiga hubkaani cusub
adiga ayay kula tahay qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay maadaama aad ka mid tahay saaxiibada nagu xidhan mar walbaan waxaynu jecelnahay inaynu kula wadaagno macluumaad wax laga kororsanayo insha allah qaybaha kale haddii aan eegno waxaa jira dagaal dhanka internetka oo soo noqnoqday oo ku saabsan dalka Ukraine kaas oo sida la sheegay weli laga yaabo inuu cirku isku sii shareerayo sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka ee dalka Mareykanka warbaahinada reer galbeedka sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale guud ahaan caalamka ayaa u muuqanaya markaan inay diiradda saarayaan sidii bannaanka loo keeni lahaa mar walba xog ka hor imaanaysa Ruushka waxaana ay soo saarayaan digniinaha kala duwan ee ku aadan in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internetka iyo kuwa kale uu ka geysto dalka Ukraine si loo tusiyo dadweynaha cadaawadna loo qaasiyo dhanka Ruushka inkastoo digniino laga soo saaray haddana weerarada dhanka internetka ee reer galbeedka ayaan ilaa iminka wax ka hirgelin waxaa macluumaadka soo baxaya ay sheegayaan in hadda Ruushka uu qorsheynayo sirdoonkooda in weerar dhanka internetka ay ku qaadaan dhanka Ukraine dhinaca kale marka la eego burcadda internetka ee madaxa bannaan ee bartilmaameedsada Ruushka ee taageeraya Ukraine ayaa sidoo kale sare u sii qaadi karaya xiisadda sida ay ka digayaan saraakiisha dhanka ammaanka iyo sidoo kale hay'adaha amniga ee dhanka internetka layaabkii ugu horreeyay ee ahaa in Ruushka uusan bilaabin weerar dhanka internetka si uu u curyaamiyo kaabayaasha dalka Ukraine markii dagaalka uu bilowday ayaa lagu bedelay fahamka ah inay jiraan dhaqdhaqaaqyo aad u daran kuwaas oo ka daran sidii markii hore loo maleynayay sidaas oo ay tahay weli waxaa soconaya macluumaadka ku saabsan in Ruushka uu qorsheynayo weerar kala duwan inuu ka fuliyo gudaha dalka Ukraine isagoo dhanka internetka adeegsanaya marar kala duwan ayaa lagu eedeeyay dhanka internetka isagoo adeegsanaya Ruushka in ay weerar dhanka internetka ay qaadeen laakiin inta badan Ruushka wuxuu u muuqanayay inuu yahay mid beeninaya eedeyn kasta oo loo soo jeedinayo dagaalada dhanka Ukraine uu ka wada Ruushka way sii xoogeysanayaan macluumaadkana waxa intaasi ay ku darayaan in maalinba maalinteeda kale ciidamada dawladda Ruushka u muuqanayaan in ay ku sii xoogeysanayaan deegaanada dhacdanka bari ee dalkaasi Ukraine maadaama Ruushka xoogiisu isugu geenaya gacan ku dhigida deegaanada dhanka bari dhaca haddana dagaaladu waxay u muuqanayaan weli gudaha Ukraine kuwa ka soconaya inkastoo waqti dheer ay qaadatay haddana wadamada reer galbeedka waxay doonayaan inay xoojiyaan cunaqabataynta ay saarayaan Ruushka si ay cadaadiskaasi ugu yaraan uu dhaliyo Ruushka inuu soo dabco laakiin waxay u muuqanaysaa in Ruushka uu ka sii darayo falanqayntii guud ahayd waa naga inta macluumaadkan kan xigay inta aan ku kulmi doona nabadgelyo